It's only in US. السلام عليكم ورحمة الله. So hadda waxaa daawanaya Facebooka sawir video Adam Salah sawir naqaano YouTube caanka ah oo maanta diyaaradu saarnay maxaa laga dajiyay because Arabiga ayuu ku hadlay soo Arab waasaga wax diyaarad loogu dajiyayna luqad kale ayuu ku hadlay so Mareykanku waxa uu cunsurnimada zaid ay ka tahay waa mid zaid u yaabay luqad kale oo ku hadashay bis diyaarad la iskaga dajinaa Mareykanka so video ga fiirsano wax yar. Please say this to Facebook and Twitter. Guys, we spoke a different language on the plane and now we're getting kicked out. That's insane. Now we're getting kicked out. We're getting kicked out because we spoke a different language. This is 2016. 2016. Look, Delta Airlines are kicking us out because we spoke a different language. Because we spoke a different language. Thank you. diyaaradu waxa saaran inta soo qofood hal qof hadlaaya ma hal nin inta ka ahayn meesha halkan in saarkaysan wuxuu egahay maxaa la Middle Eastern nin cadaan maahan soo cunsurnimada inay zaid u badatay dadkii way fiirsanayaan qof hadlaaya ma qof kale cunsuriyeenay wax dad saaran meesha kan gacanta baydhahay u daran fiir and you said you feel uncomfortable because I spoke a different language. I can't believe it. I can't believe my eyes. Why are you guys doing that? Because we spoke a different language. That's so like sad. That is so upsetting. And you guys, are you serious? I'm about to cry right now, seriously. Because we said a word in a different language, and there's 6 white people against us bearded men. 6 white people against us bearded men. How did you kick them? I feel uncomfortable. No, you're gonna kick us out once we go outside. That's what's gonna happen. They're gonna kick us out. Delta Airlines, and I have an account with you guys too. Wow. They're kicking us out. Thank you so much. Only US. Thank you so kicked out. Thank you. Waa wadanka dunida ugu horumarsan oo leeyahay sidaan aan u dhaqmayaa. I am upset that that's happening. Really. Thank you so much. You kicked them out. They hal nin bas uu istaago fiir inta qofood kale waxa way fadhiyaan. We never heard freedom of speech. They can speak in whatever language they want to on the plane. It's crazy. والله wax zaid u leeyahay. Bismillahir rahman. macnaheedu waxa uu leeyahay Mareykanka maxaa lahaa land of the free waa wadanka xorriyada lagu leeyahay luqada leedahay in ku hadli kartid soo xorriyada halkee taala mid kale waxa waaye since Donald Trump madaxweyne uu noqday Mareykanku waxa waaye cunsurnimada banaanka imaanaysa dadku ugu faanayaan maalinta ka dambaysa khaasatan dadka madowga iyo maxaa lahaa dadka aan cadaanka ahayn zaid ayaa loo dhaqmaa so hadda mutaqaana Mareykanku nolosha stay safe is ilaali mid kale dumarka darad waxa ku hata Europe zaid ay u soo badanaysaa dumarka gabar waxa arkay darad wadanka Jarmalka kuwa cunsuriyiin gabar muslimada wax laga tuuray meel maxaa lahaa underground so hadda dumarka baxaysan loo ilaa 3 isku raaca isu heshada sababtoo ah waxa waa Europe iyo Mareykanka zaid ay u sii halaabaysaa cunsurnimada zaid ay u badanaysaa so video ayaa reaction ku bixin rabay هذا مريكان كناش هاي stay safe هذا يروح كناش ما قلب جوتي صارت لها أود له وحي جوجين كلام ملها لكن at least إسكودي إنا محلها يعني safe هاتيد channel كذا كعصبته وحلا سمعوا تقانا subscribe like أصحابتك